Welcome to this channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي قصوا دوادا channel كرومير هذا maanta waxaan ka hadli doonaa maxaa sababa dhalmo la'aanta soo wajahda rag iyo dumar. Asxaabay halkaa yar ee casaanka inaga cadeeya. Dhalmo la'aanta waa in xaasku ay qaadi weyso uur iyadoo ay jirto isku day ah inay qaado uur muddo 6 bilood ah iyadoo ay sameynayso galmo aan laga gaashaaman. Ninkan naagta ayaa noqon kara dad ay haysato dhibaato xagga bacriminta ah. Dhalmo la'aanta kama dhigna inuu qofku yahay madhaliis. 15% lamaanaha waa kuwo aan heli karin ilmo, laakiin 1 ilaa 2 oo kaliya ayaa ah kuwo madhaliisnimo ay la soo daristo. Kala bar lamaanayaasha aan dhali karin ilmo ayaa ugu dambeynta dhala ilmo ayagoo isticmaalaya caawimaad caafimaad. Dhalmo la'aanta waxay la dirsi kartaa ragga iyo dumarka, waana xiisad ay la socoto dareen dambiilanimo ah. Lamaanaha isku daya inay helaan ilmo ayaa looga baahan yahay inay la tashadaan dhakhtar, khaas ahaan haddii mid ka mid ah uu qaato dawooyin ama uu qabo xaalad caafimaad, sababtoo ah dawooyinka qaar ayaa hoos u dhiga fursadaha uur qaadista. Sababaha ugu caansan ee ragga aysan u dhalin ayaa ka timaada dhibaatooyin xagga minida ah. Lambar 1, cadadka minida oo yar. Shahwada waxaa ku dhex jira mini taasoo ah 50%, waxaana loo baahan yahay si ay u bacrimiso ukumaha dumarka. Lambar 2, dhaqdhaqaaqa manida oo yar. Waxaa loo baahan yahay inay manidu u dhaqaaqdo meesha ay taalo ukunta si ay u bacrimiso. Haddii aysan dhaqaaqin, waxa bacrimin ah ma dhacayso. 3, manida oo si aan fiicnayn u samaysmata. 4, meesha ay manidu ka soo bixi lahayd oo xidhanta. Dhibaatada kale ee ku dhici karta ragga ayaa ah inay hoos u dhacdo soo saarka manida si ku meel gaar ah, waxayna dhici kartaa marka uu dhaawac soo gaadho xiniinyaha, sida marka ay kululaadaan in muddo ah, ama ninka uu isticmaalo kiimikooyin amba daawooyin saameyn kara manida. Cabidda khamriga iyo cabidda sigaarka ayaa hoos u dhigi kara cadadka manida ee ku jirta shahwada. Sidoo kale, ragga ka weyn 40 sano ayaa hoos u dhaca awoodooda ay wax ku bacrimin karaan. Sababta ugu weyn oo ay dumarku u dhali karin ayaa ah ugxantooda oo aan soo saarin ugun. Waxaa kaloo jira dhibaatooyin ka dhici kara tuumbada ay soo raacdo ukunta oo loo yaqaano fallopian tube, sababtoo ah mararka qaar tuubooyinka ayaa waxaa xidhi kara nabar ka dhasha infekshan oo loo yaqaano endometriosis. Waxaa xidhi kara nabar ka dhasha infekshankaas. Cabidda sigaarka ayaa hoos u dhigi karta fursadaha dhalmada ee dumarka. Waxaa kaloo siyaadiya fursadaha in uurku-jiifku uu galo tuumbooyin soo qaada ukumaha. Da'da ayaa ku noqon karta dumarka mid aan u saamixin inay qaadaan uur. Fursadaha in ukunta la bacrimiyo ayaa hoos u dhac weyn ku yimaada mar haddii dumarku ay gaadhaan 35 sano. Waxaa dhif ah in dumarku ay qaadaan uur wixii ka dambeeya 45 sano. Dhibaatooyinka kale ee sababi kara dhalmo la'aanta waxaa ka mid ah in xaaska ay cayilan tahay amba ay caato zaa'id ah. Marka laga soo tago ilmaha oo ah hibo uu Rabbi nagu manaystay, waxaa jiri karta labada isqaba inay dareemaan dareen dambiilanimo ah oo midba midka kale uu hoos ka eedeynayo. Laakiin waxaa wanaagsan in marka hore la ogaado in ay tahay hibo uu Rabbi dhiibo. Kadib waxaa kaloo jiri karta waqtiyo badan oo dhacdooyinka ka dhaca jirka aysan saamaxayn in uur yimaado. Si kastaba ha ahaatee, waxa wanaagsan lamaane kasta oo rajeynaya in ay uur helaan in ay wax ka bartaan waxyaabaha fududeyn kara iyo waxyaabaha cuslayn kara. Haddii loo baahan yahay in la raadiyo warbixin caafimaad oo laga heli karo macluumaad buuxa oo dhalmo la'aanta, wixii aragtidaada ah waa nagu muhiim. Fadlan commentiga hoose nagu reeb, subscribe-tana ha naga iloobin.